الحمد لله وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. walaalayaal hadda waxaan uu soo kacay waxa weeyaan waxaan maqlay geerida ninka leedahay cali khaliif galeeb. waxaan leenahay isagana allahuma اغfir lahu warxamhu, allahuma اغfir lahu warxamhu, allahuma اغfir lahu warxamhu. dadkiisiina waxaan leenahay lilaahi ma akhada walahu ma acطaa wakullu biajalin faltasbiruu waltaxtasibuu. shay walba ilaahay baa la siiyoo leh, waan marka isagana qaadanayana isaga waana qaataa. waa ammaano kulligana maaragtay nafsiyadoo dhan waa ammaano ah. ilaahay hanoo naxariisto kulligana, ilaahayna hanoona dembi dhaafo, isagana insha allahu tacaala allahu dembi dhaafo, allah hanu naxariisto. hadda dadka oo maaragtay mas-uuliyiintiina waxaan leeyahay ninkaas ha la keeno, hana la qiimeeyo. qiimeynta la qiimeynayana laakiin qaabka gaalada yaysan ahaan ee qaabka islaamka ha ahaato. janaasada iyo waxyaalaha loogu dadaalayo janaasada ugu weyn, sagootiskaas ilaahayna looga ergeynayo, janaasada ugu weyn, janaasada ha loo badiyo. dadka oo ka dhashayna ama dadkii oo ka tegayna de kale hadday dad waaweyn yihiinna waa alxamdulilah, haddii kalena hala wanaajiyo, hana loo dadaalo. dadka uu ka dhashayna oo waxaan sheegayaa qabiilkaasna ayagana waxaan uga dardaarmahayaa iyaguna ha sabraano kulligood, allahna maarata musiibadoodana ilaahay ha ka kabo. dadka soomaaliyeedna dadkaas waa kala dardaarmahaya qabiilkan sheegaya, meel khatar ay ku jiraan, iyagu waa ku dhiban yihiin oo waxa weeyaan labada dhanba waa ku dhiban yihiin. laakiin soomaalida meel khatar ay uga jiraan oo waxa weye waa joint waaye, meel xiriir oo xiriirka soomaalida isu celiya ayay ku jiraan, laakiin ayagu ku dhiban yihiin. marka waxaan leeyi lahaa marka aada iyo aadkii arrintaas ha loona qiimeeyo, ha loona ogaado. ninka kan anagu hadda maaragtay waxaan bartay markii carte ay ka yimaadeen oon weli la cayimin, laakiin warku uu tashi ku jiray waagaasaan bartay. marka dadkii maaragtay kolley cabdiqaasim kula teliyana waa ka mid ahaa. marka waxaan ku iri markiiba yacni aniga waxaan idhi asaga si shaksiya uma aqaani, laakiin waxaan idhi qabiilka ayaa laba arrimood aan ku qiimeynayaa. oo mid waxa weeyaan soomaalida dhama ila qabto waxa weeyaan deed waxaa weeyaan waa xiriirka soomaalida ayay maaragtay waxay ku yihiin maaragtay xibin muhiim ay ka yimaan, silsilada isku xirta waaye soomaalida. markii hadda waxaan u jeeday maaragtay waqooyiga iyo koonfurkaan u jeeday, silsila maaragtay joinka isku xira, silsilada isku xirta waayaan idhi. marka mid anigana ii gaaraha jirtaan idhi oo waxa weeyaan dee nimankaasu islaamkay waxay ku leeyihiin arrin maaragtay wanaagsanay ku leeyihiin, saan wanaagsanay ku leeyihiin, hiilay ku leeyihiin. marka waxa weeyaan saas darteeda markii uba maaragtay cabdiqaasim la soo boodo u yiri saasaan ku goosanay u dheh, isagana allah wanaaji. marka sidaas waaye. niga hadda waxa weeyaan hoos ugama warqabo oo khusuusiyaadkiisa ugama warqabo, laakiin waxaan uun dareemay yacni raggii uun siyaasiyiintahay oo hadda uun geeridooda aan maqmaqlahayay, nin hadda ishaydu ay ilmeysa asaga an baan ka arkay ilaa haddan maaragtay sidii maaragtay qalbigii ka yahay. laakiin kastoo dan hooshaan aan u aqoonin, laakiin jawigaasaan iska dareemahayaa maaragtay oo aada iyo aada shucuurkayga uu ku leeyahay.
waagii cabdiqaasim anigu waa garan waayey, waa ninka keliya oo maaragtay ra-iisul wasaarenimadaas runtii firfircoonina ka muujiyey buu ahaa, sidii ra'yigaygu ahaa waaye. haddana isku dayay dowladdaas maaragtay Ethiopia oo maaragtay aan u haysano kolley dadka iyaga maaragtay inta badan aan u haysano inay arrimaha Soomaalida dhib weyn ay ku hayso, yacni isku dayay inuu meel ka saaro Soomaalida oo qadiyadda Soomaalida siyaasigeeda uu ka saaro, ninkii isku dayay uu ahaa. waana u malaynayaa meesha looga yimid inay halkaas haydo oo cabdiqaasimka laftiisa in culays lagu saaraan u malaynayaa oo Ethiopia ay ku saartay. waa maladayda waay, asaga kalama sheekaysan, laakiin oo mana aanan weydiinin oo hadda isbaba aanan arkin sida badanaaba, oo markaas mana aanan wada joogin. markii oo carta waa markaas waa taladaas waa ku jiray, laakiin markii dambe markii la casilahayay imaaraadkan joogay. marka xoogaa waa yaraha oo ka aadan uga xumaa, oo maxaan marka laakiin waxaan ku qadarinayay maadaama Ethiopia uu maaragtay xoogaa culays uu saaray siyaasadda inuu ka saaro Soomaalida isku dayay meel walba. waxaan islahaa cabdiqaasimka ayaa cilad waxa iskaga jirtay maaragtay yacni si oo loo aqbalo. runtii isaga laftiisana Ethiopiaanku ma ay jeclayn laftiisa, oo sidii maaragtay wadaadka cali wajiiza oo mar oo noo sheegay Ethiopiaanka gabar safiir u ahayd Djibouti maray ka sheekaysay waxay tiri maaragtay nin anfacaya maaha, waa cabdiqaasimka u jeed nin anfacaya maahana waxa weeyaan waa islaamisti. 3 qodob ay ku sheegto dhahay waa islaamisti, waa maaragtay nin islaamka oo waxa weeyaan wuxuu yiri markii uu aan la sheekaysanayay 13 jeer oo maxkamadaha oo amaanay tiri 13 jeer oo warkiisa ku soo celiyay tiri maaragtay uu soo maray isagoo waliba amaanahay. midda kale waxay tiri waa nin maaragtay oo Soomaali weyn ay ku jirto, oo marka adiga waxyaalo saasay ka sheegto in maaragtay ninkii anfacay aysan ahayn ay ka sheegto. marka isaga laftiisa saas ahaa iyo kanooba maaragtay la soo booday inuu maaragtay dadkii oo nimankii maaragtay oo culays ku saaro inay siyaasadda Soomaalida laga maaragtay ay ka baxaan oo maaragtay banaanka uu ka dhigo ayay ahayd. marka waxaan u malaynayaa culays in lagu saaray maaragtay caynkaasina ahayd baan u malaynaya. isaguna uu siiri maaragtay ama oo caqabad uu yahay. waxyaalo kale way sheegayeen kuwaan maaragtay xoogaa kuwaan cayrka ahaan waagii ku qabsadoon maxaa oo deed iyaga buddhiga u ahaa siyaasadda markaas. marka laakiin wax macno lahoo hadda ay ii sheegeen male. marka eedaan ugu haystay runtii. waxaa iiga darayd oo aanan halmaamin runtii ninka la yidhaahdo markii waxaa isaga lagu bedelay xasan abshir markiiba Ethiopia u aaday. waxyaalaha iga yaabiyay ahayd markiiba Ethiopia u aaday. isagu markuu Ethiopia ka soo noqday wuxuu naga soo maray imaaraadku nagu soo maray. marka raggii u tagaan ka mid ahaa su-aashaana weydiiyey Ethiopia maxaad kala soo kulantaan dhahay. markaasuu yiri warqad cad baan inta u dhiibnay aan waxaan nidhi yiri waxa aad naga rabtaan ku qorta warqadan. markaasi wuxuu yiri Mille Zenawi wuxuu dhahay yiri waxa aan Soomaali ka rabno warqadi ma qaado. waligay ma ilooba hadalkaas. waxaan Soomaali ka rabno warqadi ma qaado oo nagu dhaw. macna marka farqiga aad dareemaysaa labada nin oo isku bedelay maaragtay yacni meeshaasaan xoogaan maaragtay waxaan in maaragtay cabdiqaasimkan maaragtay xataa aan eed uga dhigayo waxaan lahaa maaragtay yacni qaabka uu wax u socdaan iyo ragga waana ku malaynayay ragga inuu maaragtay yaqaano oo markii hore dadka oo aad ugu malaynayay dadka inuu yaqaano ayay ila ahay. marka ninkii saasa inuu ninkaas ku bedesho waxa weeye la yaabay. markii dambana xataa wuxuu intuu dirsaday waa kii shirkii oo dhanka kale uga wariyay aad iyo aad.
marka waxyaalaha oo maaragtay yani cajiibta lahoo kiiskaas iga soo maray ay ahayd. marka waxaan leeyahay maaragtay kolleyba ilaahay ha u naxariisto, ilaahayna ha u dembi dhaafo, ilaahayna maaragtay meel khayr le allah geeyo insha allahu tacaala. kiiska oo janaazadiisana ha la wanaajiyo, doogta xabaashiisana ha la wanaajiyo. waxyaalaha gaalada laga qaatay oo qashinka ahi yaan lagu samaynin, dadka ha ku samaynina. oo yani si qarana u duwayna waa sax, waa kuwa waafaqsana si qaran in maarata loo qiimeeyo, laakiin waxa weeya waxyaalaha aan laga soo ergistay gaalada yaan meydka iyaga lagu samaynin, aan lagu samaynin. annaga qiimaha ugu weyno qofka maarata waxa weeyaan waa janaazada waay. wax qiimaha kaloo ugu fiican waxa weeyaan dadkiisi in wanaag looga maarata looga daba maro oo looga haro oo maarata la wanaajiyo. khaasatan maaragtay qabiilkaas waa kasii dardaarmaya, jazaahum allahu khayr. isagana allah u naxariisto, annaga dhanna allah noo naxariisto, meydka iyagoo dhanna allah noo cafiyo, meel khayr la kulligana allah na dhigo insha allah. dunya aakhiraba allah na wanaajiyo, maaragtay alladii aakhiraba allah noo naxariisto kulligana, allah na wanaajiyo, allah na wanaajiyo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.